رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Rashiid Maxamed. kusoo dhawaada daawadayaal muuqaalka maanta. mawduuca maanta aynu ka hadli doonaa waa fadliga bisha Ramadaan. in Ilaahay Ramadaan ina gaarsiiyay waa nimco iyo baraare weyn, waxaana ay fursad u tahay dadka Ilaahay ka fogaaday ee ka tagay cibaadadiisa inay u soo noqdaan oo ay toobad keenaan. sidoo kale macaasidii iyo dambiyadii ay ku jireen u bedelaan wanaag, mooganaantii ay ku jireen oo ay ka baxaan oo ay u bedelaan dhikriga Allah subhanahu wa ta'ala. ka fogaanshihi ay ka fogaadeen Allah iyo acmaasha khayrka ay ku bedelaan in Ilaah u soo dhawaadaan oo ay acmaasha dib ugu soo noqdaan. sidoo kale qofka sooma bisha Ramadaan isagoo oo rumaysan oo ajarna ku dalbaya dambigiisii hore waa la dhaafaa. cibaadooyinka kale dhammaantood qofka ayaa iska leh, meelaha qofka ayaa isagoo ku xisaabtamaya ajarka uu ka helayo. acmaasha oo dhan Ilaahay baa iska leh, laakiin cibaadooyinka dhammaantood qofka ayaa iska leh kuna xisaabtamaya ajarka uu ka helayo. balse soomka Allah ayaa iska leh, isagaana ku abaalinaya qofka ajar aan la cayimi karin. waayo qofku laga yaabaa inuu ku yiraahdo waan soomanahay, in ay ka muuqato duruufihii soonku, in wajigiisa aad ka garan karto qofkaas inuu sameeyay, laakiin haddii uu guriga galo oo wax soo ma garan kartid, Allah oo qura ayaa ogaan kara. saas darteed ayaa loo yiri Ilaahay baa soomka iska leh. ajar cayiman oo la sheegay ma jiro. camalada kale waa laynoo sheegay oo ajarkooda qaar badan waa laynoo sheegay, laakiin soomka lama sheegin ajarkiisa. Allah oo qura ayaana og oo ku abaalinaya maalinta qiyaame. maxaa kamid ah hadaba fadliga bisha Ramadaan? fadliga bisha Ramadaan aad ayuu fara badan tahay, laakiinse waxaa kamid ah qodobo ayaan soo qaadan doonaa ilaa 5 ah. kuwa ugu horeeya waxaa kamid ah waxa la furaa albaabada jannada. albaabada jannada waxaa loo furaa si dadku ay u badiyaan oo ay u joogteeyaan oo aanay uga caajisin acmaasha wanaagsan. waayo jannadii baa furan, albaabadii jannada furan, raxmadii baa dareemaysaa. waxaad arkaysaa in masaajidada buuxsameen, waxaad arkaysaa in lagu tartamayo safka hore ama lagu tartamayo masaajidka inuu ka buuxsamayo. sidoo kale kuwa naarta waa la xidhaa si dadku ay uga fogaadaan macaasida iyo dambiyada. waxaad arkaysaa masaajidadii oo buuxa, waxaad arkaysaa qofkii oo sooman, waxaad arkaysaa qofkii oo cibaadeysanaya. dadka badankoodu aad masaajidadii iyo xalaqaadkii iyo i'tikaafkii masaajidada iyo dad aan masaajidada ku arki jirin baad ku arkaysaa. qodobka saddexaad, shayaadiinta kuwa waaweyn waa la xidhaa si aanay qofka uga mashquulin hawlaha khayrka ah. haddii aad u fiirsato Ramadaanta, dad markii hore aad ku kari waday warina mar shawan salaada soo tukan, warkaalay cibaadeysta, warkaalaya khayrka u tartama, warsaga soo kaca gidarada. waxaad arkaysaa iyagoo masaajidda soo buuxiyay. wax kale maaha, shayaadiintii waaweyneed ee dhikada kaga taagneyd ee salaada u diidineed ee khayrka u diidineed ayaa la xidhay dhammaantood. qodobka afraad, habeen kasta qoor ayaa laga xoreeyaa naarta. sidoo kale qodobka 6aad, Ramadaan, qodobka 5aad, Ramadaan ilaa Ramadaan kale dambigaaga ayaa la dhaafaya haddii aad ka fogaato dunuubta waaweyn. qodobka 6aad, bishan waxaa soo degay hadalka Allah, kalaamka Ilaahay, kalaamka raxmadda ah, kalaamka bushaarada ah, waa quraanka kariimka ah. subhanallah, alxamdulilah, Allahu akbar. waa quraanka kariimka ayaa soo degay bishan Ramadaan. fadliga ay leedahay kaliya waxa kaaga filan quraanka ayuu Allah soo dejiyay bishan Ramadaan subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaykum. haddii aad ku cusub tahay channelka Rashiid Safari, subscribe saar, like tana nagu caawi, fadlan sidoo kale la wadaag asxaabtaada si uu u gaaro muuqaalkan iyo muuqaalo kale, adiguna aad u hesho ajar iyo xasanaad. mahadsanid.